golaha guurtida Somaliland ayaa maanta ansixiyay xeerka ilaalinta kaymaha iyo duurjoogta waxaana kalfadhigan ay maanta ku yeesheen xarunta golahaasi oo shir gudoominayay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golahaasi Siciid Jaamac Cali goobjoog ka ahaa 47 mudane ugu horeyn shir gudoomiyaha kalfadhigaasi ayaa sheegay in la gudagali doono codaynta xeerka ilaalinta kaymaha iyo duurjoogta oo muddo badan hor yaalay golahaasi 45 mudane oo kamid ah 47kii mudane ee kalfadhigaasi fadhiyay ayaa ogolaaday ansixinta xeerkaasi halka uu ka diiday hal mudane gudoomiyuhuna muu codaynin sidaasina waxa ku ansaxay xeerkaasi hal ma diiday dadka muslimiinta gudoomiyuhu ma coday okay xeerka waxa ogolaaday oo ansixiyay 45 mudane waxa diiday hal mudane gudoomiyuhuna ma codayn تضيع فرق كيح اللي معنا فرق الفريقين أساس كده يا حد أساس كويس